السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بما حضر نسكناتي وحمانتا شرف نوعه إن آن لكل الشيخ إني أين وذتشعرين شيخ حسين علي. إلهي سبحانه وتعالى ها حفظيه شيخ إن شاء الله تعالى كالمذير ودردارا أي إن شاء الله تعالى إنوتشي دينيا أي ندقيسنا إن شاء الله تعالى وعليه نكرنا إن قارسين إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نبي نودقون عليه الصلاة والسلام وحول أعطيته جوامع الكلم. الله أكبر. وحيلا يعني يسيي كلمات كالمذير وكوبا لكن مرتله. حديث كاس وحان سوق هذا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث هو صحيح. يعني لبا در ركن الدين تسلامك أي كنت أجنت هاي وحقوق الله حقوق العباد. حدات هذا الحق إلى هاي بنبوحن وحق بني آذنك وكنت من كاسع ميس. الله أكبر. haddaad tiraadid xuquuqul cibaad un baan ilaalin oo xaqa ilaahayna waan dayici iyadna kaa soconi mayso. Allahu akbar. marka labadaas la doonaya diinteena inaan ku joojino. xaqa ilaahayna ilaali waa tawxiidkii, waa iimaankii, waa macrifadii, waa salaadii, waa soonkii, waa xajkii. xuquuqul cibaadna iska ilaaliyo waa zakadii, sadaqadii, ixsaankii weeyaan, iyo in ummaddu adinkaaga carabkaaga ka nabad gasho. Allahu akbar. gaalada adduunyada nagula nool laga yaaba xaqa bini aadanka inay aad u ilaaliyaan, walaakiin ilaahay wuxuu yidhi: waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura. waxay adduunyada ixsaan iyo khayr iyo samafal ay soo sameeyeen adduunka iyaka lagu siin, laakiin aakhira waxba ku heli maayaan maadaama xaqi ilaahay ay dayaceen. marka xadiidkaas nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi: ittaqi allaha, ilaahay ka baq oo ilaahay ka yaab حيثما كنت ما شاء دونتبا هنغاتدو هجوكتدي واتبع السيئة الحسنة تمحوها. هدي قف وكاد عنها بشر باتو واتقفيساي حريست إلهي وفرنتها كقوسنه حسنات يا خير يا عمل وناكسن كدن بيسي. مركاسا وليبا إلهي نبي قوحو كليا خير كآد سميسي الدنبه حمانتي هورئي كاد عذبي مصحيسا. إن الحسنات يذهبن السيئات، لما أورن إن السيئات يذهبن الحسنات. إلهي وكريم والرحيم والرحمن أدومي سأجعلي هاي خير من هداد سميس خير كاس وكويا الله الكاس. دنبك هدي أتكدب سميسين خير كي هرك هما صحمي مايو، لكن قف هدوك هادعو وخير أتكدم بيسيسيد قففك يرير ويان خير كادم بي أتسميسي سدا صلاة يا ويسا قادة شدا يا مسكيتك الله سعودو يا حلقات العلم والله فريستو iyo masjidka lagu i'tikaafo. acmaashaasi waa maxay? waa kafaaraat. gafafkii yaryaraayo dhan bay kaa masaxaysaa. wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. bini aadankana dadkana akhlaaqda wanaagsan kula dhaqan. muslimiinta lama dhihin keliya, dadka buu nebigu yidhi, dadka akhlaaqda wanaagsan. gaaladu maanta dad badan baa jiro waddanno gaala ku dhex nool. salaadeenna ma arkaan, soonkeenna ma arkaan, zakadeena dheef kuma leh, xajka ma gali karaan oo maka intaan la gaadhin baa waa ka xaddul xaram mamnuuc baaba ku qoran ba inuu nin gaala halkaa u dhaafo. laakiin gaaladu maxay arkayaan? dhaqankeennay arkayaan, akhlaaqdeennay arkayaan. ibraahim aladham allah u naxariistay baa la sheegay inuu nin yahuudiya ayaa u yimiday isagoo ay wata. markaasuu yidhi: ibraahim aladham sheekha la yidhaha ma adiga? markaasuu yidhi: waa la yidhaaye maxaa jira buu yidhi, say wuxuu jiraan? wuxuu yidhi: aygaygan iyo adiga midkee fadli badan buu ku yidhi. markaa sheekhi uu aamusayo waxaan umala su-aasha nin gaal hadduu labadeenana weydiin lahaa mustafa waa dagaal soo maha. laakiin sheekhaasi wuxuu yidhi: haddii hadhow toole aakhiro markii la joogo ilaahay lay hor joojiyo kitaabkayga gacanta midig layga siiyoon janno galo, maalinka eygaaga anaa ka fiican buu yidhi, kana fadli badan. laakiin maalintaa ilaahay kama yeele haddaan khasaaro kitaabka gacanta bidixaan ka qaato naar la igu tuuro, أيجا جا فضل بدن بودي. إنك وحيري والله أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء عليهم السلام.
marka walaalahay waxaan nagu boorinaynaa annaguna nafteeda aan ku boorinaynaa mar walba inaan xuquuq allah iyo xuquuq alcibaad labadaaba iska ilaalino hada wasala allahu calaa sayidina muxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh hadda waxaa khadka ku jira 36 qof oo kelmad yar dhegeysanayay insha allahu tacaala in ka badanna way sii dhegeysan doonaan qaar waxay soo qorayaan sheekha noo duceeya sheekh xuseen cali noo duceeya insha allahu tacaala waa idin soo ducanaya walaalayaal allah idin barakeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala waanadaas allah inagu anfaco quulu aamiin waxaad samaysaan sheer gareeya faafiya insha allahu tacaala waxa weeye walaalihiina kala gaarsiiya ilaahay subxaana wa tacaala nagu anfacaya waadna mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh